السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين وناكسن أصحابي مالكستو هاتشوكتان وهبين نمو أحدا إسنين أي سوق ليسو تاريخ دون أي تايشان يتبان كمارسو لباكوني اللحية لباتن وضبضا برنامج كعاوان دي كوغها يوحاكم بدا كدب مركي عداد إسلا ساري حفيز نتنياهو ليري أضغى النولول إيا جيري مالكو شاقا فيديو عصب أي غوردو سوق ليين هودا taasoo ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ay mar kale shaki ka muujiyeen fiidiyowga Netanyahu uu ku hadlayo haddaba sidee wax u jiraan fiidiyowgu ma saxan yahay mise wuu qaldan yahay ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. qodobada kale ee barnaamijkan idinkugu hayo waxaa ka mid ah afhayeenka ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan oo sheegay in ay isticmaalayaan gantaalaha hadda 10 sano ka hor kuwii la sameeyay balse aanay wali isticmaalin gantaalihii ugu dambeeyay ee hadda ay sameeyeen oo kaba casrisan sida ay sheegeen kuwii hore xilli Israa'iil agaasimaha guud wasaaradda gaashaandhigga uu safar ugu ambabaxay Mareykanka si ay hub cusub u soo rartaan oo ay u keensadaan xaaladda guud dagaalka meesha la kala marayo weerar culus oo Israa'iil iyo Xisbullah iyo Iiraan ay isdhaafsadeen ayaanu barnaamijka ku faaqidi doonaa inta ku jirno warar cusub haday soo kordhaan waan idin la socodsiin doonaa Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. adeega maamuus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya, ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira. naftaada ku maamuus xirmooyinka adeega maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 afargees. waxaa dhammaanba bulshada lala socodsiinayaa meel kastoo ay joogaan gaar ahaan dalka Kenya iyo geeska Afrika iyo magaalada Nairobi inay jirto shirkadda caan baxday shirkadaha uga duwan xagga diyaarinta dhismayaasha dhaadheer oo waa shirkadaasi caanka ahi waa shirkadda lagu magacaabo Emara Luxury Homes Limited ee fadhigeedu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya gaar ahaan Kilimani iyo wadada caanka ah ee lagu magacaabo Leilani Road oo aan ka fogeyn safaaradda dawladda China ee ku leedahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Emara Luxury Homes Limited waxay ku diyaarinayaan laba dhismo oo dhaadheer oo caan ka ah magaalada Nairobi dadkuna ay u aayayaan mustaqbalka dhow iyo ka fog intaba waa Parkland iyo halka lagu magacaabo amaba agagaarka waxage waa City Park Drive 6th Avenue. dhismaha kale dheer ee labaad ee shirkadaasi ay ku diyaarisay waa dhismaha lagaga diyaariyay halka lagu magacaabo Kilimani iyo wadada madaxtooyada ee dalka Kenya ee magaalada Nairobi waxa hagayo hogaaminaya وسيدك الصوماليات وسيدك جيسك أفريكا أيان لموغان جود أهم مامولك جود الشركات اللي تعليسته إمارة لكشري هومس ليميتد. كل wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawareysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo axada oo isniin ay soo galayso taariikhduna waa 15 Maarso barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu dambeeyay ee soo kordhay dagaalka culus ee ka socda gobolka Bariga Dhexe haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa kadib markii su'aalo adag oo iska soo daba noqday la weydiiyay xafiiska ra'iisul wasaare Netanyahu oo la yiri aaway odagii meel ku sheega dhimasho ku sheega dhaawac ku sheega inuu xanuunsan yahay isbitaal ku jiro ku sheega ama inuu fayow yahay wax cadeynaya soo duuba waataan barnaamijyadii hore idinkugu sheegay xafiiska Netanyahu ayaa su'aalahaas la weydiiyay xafiiska Netanyahu wuxuu yiri ninkii uu fiican yahay wararka laga sheegayna wax ka jira ma jiraan cadeynoo keena leer marka waxa tiraadeen ma dhaawacna ma dhimanin isbitaalna kuma jiro soo ma aha uu fiican yahay soo ma dhina cadeyn muujinaysa inuu fiican yahay nookeen nimankii markaa odayga soo wadeen sida la leeyahay inkastoo ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan shaki badan oo ka qaba fiidiyowga laftirkiisa laakiin fiidiyowga soo u muuqdo
odayaa la soo kaxeeyey meel makhaayad u eg ayaa la soo geliyey magac kuma qorna meesha calaamad kuma qorna wax kale kuma qorna meesha meelay tahay lama yaqaano ninkii oo leh kafeeyaan soo qaatay dadkii meelaha shaacinaya 6 farood uu leeyahay 6 malihiye 5 farood waa kuwaas waa leeyahay isagoo dhahay ayaa videogii la soo daayay marka aan marka hore warbixinta iyo videoga idin tuso kadibna ciidanka ilaalada kacaanka waxay ka yiraahdeen marka hore videoga ku hormarina videoga aan idin tuso ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. ראש הממשלה מסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים לא יכול לשתף. فيديوغي أي شاعيان نمكي حفيزكي سكشقين ينتنياه ورباهين تدانا وقيمة واكنا أضيقوا أنولي قرد ويد مركا وحاسوها اللي إذا كإلالة كعان كإيران وفيديوغي كالي شكيا كغبناي دين فيديوغان إنو صحيا لفتركي ساسي اللي سميه ورا يمد هدي صحيا حتى وحدين أنه كنت بشرنا كان نولل مبا uga tagayna dhahan hatta hadii uu fakaday dhahan oo waa fakada ay run noqoto kan waa daba taagan dhahan dagaal ha socdo ama joogsado kan ayatullaahi waa raacay dhahan laakiin videogan shakiga ka qabnay taagin hadaba marka aan idin tuso jirada leeraado ra'yul yawm ayaa waxay leedahay ciidanka ilaalada kacaanka Iran waxay sheegeen inay daba socdaan oo aysan marnaba ka hari doonin hatta haduu nool yahay leen ayagu shakiga gilaan haduuba nool yahay Netanyahu oo soo bandhigay video kadib markii la shaaciyay wararka dhimashadiisa ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa shaki weyn ka qaba videoga cusub laftirkiisa lagu leeyahay فيديوغان عصب لفتركيسة أيا واحد لوغة جران إليه لكن إذا كان حيا حتى هدو نولي هاي معناها هدو نولي هاي ما حتى هدو نولي هاي كان شكيا كغبناي حتى هدو نولي هاي كوا كنت بجران آية الله يسوى إسراع الدوران كان أدون جوغين ده هرلونتو أما ميل حقلو أما قد هوستيس أما ميل كافيه كسوقاتو أما بين هلا بصميو هلا مديفيكي وحكستا wax anaga ma sheekada lagu ma jirteen marka videogiisaas falcelintaas ay durbaba Iran ka soo saartay oo ay ka bixisay wali waxaynu ku jirnaa wararkii ciidanka ilaalada kacaanka Iran waxay sheegeen gantaalaha hadda aan isticmaalnayno maalmahan yiraahdeen 10 sano ka hor kuwii aan sameeyno macnaha 10 sano ka hor tiknoolajiyada xagee joogtay kuwii ugu dambeeyay oo 12 maalmood dagaalka kadib la sameeyay wali ma aan isticmaaladeen kuwaas waxa lagu kala ogaaday awoodda iyo waxa iyo gantaalihii la riday iyo tiknoolajiyo kale ay keeneen iyo shaynays iyo waxba lagu biiriyay kuwii dambe waxay ku leeyihiin gantaalaha hadda aan bixinayno waa xaraashayna kuwii hore 10 sano iyo dhowr 10 sano ka hor aan sameeynay waayo waxa hadda jugta culus oo dhimanka nagta ka saaray maxaa u dhimanay yiraahdeen wallahi waxba u dhimanay dheh kuwii cusbaa oo wali la gaaray kuwii hore saan uga qaylisiiso ma kuwii cusbaa ay u dhiman waati maanta barnaamijkaygii labaad aan ku soo qaadanay wasiirka arrimaha dibadda Iran oo leh suuragal ma aha ma yeelayno xabad joojin wada hadalna ma rabno ilaa darbigaas la tagno markuu leeyahay ma khaasinada kaydka u ogyahay hadaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera waxay leedahay caawa afayanu hadlay ciidanka ilaalada kacaanka Iran wuxuu xaqiijiyay gantaalaha ilaa hadda la isticmaalayo inay yihiin kuwii la soo saaray 10 sano ka hor 10 sano ka hor gantaalihii la soo saaray waayuu leeyahay waxa meesha ka socda marka nimankaasu baabkaasi jooga Soomaa Israa'iilna aflabadiya qaylna mar waxay leeyihiin waxba naga ma dhamaanin marna waxay waa naga dhamaad hadda maxaa la soo ogaaday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga iyo wafdi hogaaminayo Washington tagay warnimada hubka difaacana si Mareykan laftirkiisa khaatib billaah jooga
hubkii muxuu isku difaaca maraakiibtiisii maxaa lagu difaaca badda daadsan kuwan kale saldhigyadiisi maxaa lagu difaaca israa'iil maxaa isku difaacay wixii u kala qaybsami lahaa waa wareereen marka hubaa la doonaa lagu leeyahay israa'iil hubay doonatay haddaba marka aan idintusoo wararkii ugu dambeeyey wasaaradda gaashaandhigga israa'iil waxay caddaysay in agaasimaha guud ee wasaaradda uu bilaabay booqasho uu ku tegayo washington si uu heshiisyo cusub oo lagama maarmaan ah oo hub lagu soo iibsanayo uu ula soo saxiixdo mas-uuliyiinta dalka maraykanka inuu markaa la soo saxiixdo heshiisyadaasaa lagu leeyahy waay marka hawshaasu halkaasay horta xaajadu maraysaa dagaalkiia noo soo haray ciidanka ilaalada kacaanka waxay marayaan almawjatu 56 mawjadii ama dufcaddii 56 waa lasii dirwayaa gantaalaha wax joogsanayo male wallahi nimanka ay ula dhibaataa ku dhacday waxay falastiin ku dhigeen ilaahay waa ku dhigayaa bal fiiri habeen iyo maalin jugtaasaa la isku hayaa waa la garaacayaa iyaguna marka maxay leeyihiin annaguna waa garaacaynayne marka meeshii maxaa ka socda waa laysku baaba'ayaa marka hore waxaan ku hormaraynaa israa'iil afhayeenkooda oo goordhow shir jaraa'id qabtay wuxuu yidhi waxaan weerar qaadnay 24 saac ee lasoo dhaafay 200 oo goobood oo iiraan ku yaalla ayaanu weerarnay oo aanu beegsanay macluumaadka waxay sheegayaan